نفتيدني والعفة ربو لابتيد الدافع السلام عليكم marka hore waxaan u maad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala qoomkana keenay marka labaad TV u maad celinaynaa marka saddexaad waxaan u maad celinaynaa maamulka marka saddexaad waxaan u maad celinaynaa ganacsatada gudiga ganacsatada degmada Afgooye alxamdulillah anaga waxaan ahay ganacsatada Afgooye sida xoolaha dadka gado suuqa eriga marka alxamdulillah anaga hadda maamul ama yani qof bini aadan oo ugu tabaruc ma jirto anaga kaska wax u qabso ayaan isku garanay inaa yani suuqana aan ku dhisano anaga dib aan ku qabno maalmaha oo xilli roobaadka markii la gaaro fasalka anoo xil walba aan guureyno anaga xoolaheena rafaad iyo silac aan marnay waxaan marka aan wada tashan waxaan isku garaysanay inaan anaga suuqana aan u dhisno kaska wax u qabso marka hadda qof bini aadam yani maamul ahaado ama yani qof kale qof bini aadam maanta garabna uu sii ma jirto anaga isku tashanay anaga lacag aruursanay marka waxaan jecelahay dadka muslimiinta oo dadka kale oo jaaliyadaha Soomaalida dibadda ku maqan inay lagu saacidaan suuqan sida loogu dhislaayeen degmadan waxa nuurinoo suuqan waay suuqan haduu dumo waxa magaalada ma jireyso Afgooy lagu sheegay suuqa eriga ganacsatada waay ganacsiga oo dhan markii total isku keeno wuxuu imaanaa eriga suuqan hadii laga raro degmada Afgooy eriga laga raro magaalo ma aha waxay noqonaysaa meel tuulo marka dadka Soomaalida dhamaan dadka u dhashtay dhamaan waxaan u maadcelinaa inaa yani talay tusaale aan ku siiyo suuqan inaa wada dhisano anaga waxaan wada qabsano dad gacmo wada jiray wax ku gooyaan inaa anaga suuqan aan wada dhisano anaga aan isku tashano qof bini aadan aan ku tashanin oo anaga markaan isku tashano ayaan wax qabsi karnaa marka waxaan u maadcelinaa dadka dhamaan waxaan u sheegayaa inaa yani anaga aan isku tala darsano suuqas aan ku dhisanahay marka intaas waaye hadda waxaan ku wareejinaa walaalkayga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد waxaan halkan u taaganahay walaalkay warkii uu sheegay oo ahaa dib u dhiska suuqa ariga khaasatan degmada Afgooye suuqa waxa ka soo shaqeeyay guddi ganacsata ay leedahay suuqa ariga guddigaas ayaa si hagar la'aan ah ugu soo shaqeeyay ayaga ummadan badbaadadooda iyo suuqan badbaadadiisa ka shaqeynaya waxaan isla gartay rida ka timaado raas caseergaaska booni in la saaro 10,000 shilin oo qaarana qofka xaraglaha oo baadiyaha ka yimaado tuulada ka yimaado iyo qofka ganacsadaha oo 100 ka neef wato hadii uu hal ri wato hadii uu 100 ri wato min 10,000 qabato waxa loogu talagalay suuqa badbaadadiisa ummadan badbaadadeeda goobta ay ku shaqaysanayso ganacsatada oo degmada nuurinaysa in lagu dhiso dib u habeyntaas ayaa loogu talagalay umada way gargaareen suuqo in badan ay wax bixiyeen ala daaqa inta ay awoodaan way dhiibeen waxba ma harkeeranin waa ugu mahad celinayna waxaan kale ugu baaqaynaa wixii u dhiman oo suuqaas naaqiska ah oo rabo carab buuxin kale in ay si tabarucaan ee ilaahay dartii wax u bixiyaan sida shalay ay u dhiibayaan inay birina u sii dhiibaan ilaa suuqa danta laga leeyahay laga gaaro suuqan 3 bilood ayaa lagu shaqeey jiray 3 biloodna waa laga guuri jiray waxaana qasbay roobka dartii okay suuqan yaa idin dhismaa yaa idin ku saaciday maadaama oo cashuurihiin laga qaado yaa idin ku saacid cashuur ahaan lagu kabay dadka yaa idin ku saaciday marka waxa nagu saaciday guddiga ganacsatada oo gartay dadka ku nool suuqa ganacsada in 10,000 shilin ay saaraan dhaqaale kale looma arkin ganacsatadaas ayaa bixisay qofka tuulooyinka ka yimaada iyo kan ganacsadaha magaalada ka yimaado على ري قف والبا وحو 10,000 ayaa laga qaaday
ciidda aad arkaydo maanta suuqa taal waxaa loogu talagalay suuqaas badbaadadiisa waxaana bixiyey ganacsatada cid bini aadam oo kale wax ku darsatay oo maanta ognahay maya hay'ad hataa waxaan ognahay oo maanta wax ku darsado gacan ka geystay male okay caalam waxa ugu baaqay iyo jaaliyada ummadda Soomaaliyeed jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda ku nool dalkii dibadda ku nool qof walba awoodo in kumka uu haysto uu wax ka dhiibi karo waa tabarrucaad waa ilaahay dartii suuqaas ummad islaam ayaa ku nool waxaan ka codsanaynaa oo mar saddexaad ka codsanaynaa in qof walba waxay awoodda ay ka qaadato awooddeeda waan ugu mahad celinaynaa guddiga ganacsatada waxaan kaloo u mahad celinaynaa idaacadda Hon Cable TV oo nagu soo booqatay barnaamijkan Tusma TV yani Tusma TV afwan Tusma TV waxaan leenahay guuleyso waana garab istaagteen codkeena meel dheer iyo meel dhow bageersiyo si suuqan uu horumari lahaa ummadda masaakiinta ay horumari lahaa marka Soomaalida waxay tiraahdaa xirbad aroorta masaar waaye marka horta awalan ilaahay gacantiisa ma yadiis u baahanahay bacdallahi wax awoodo oo macnaha oo suuqan wax ku taro oo diyaar u ah kaalmo ilaahay gacantiisa ayaa u baahanahay laakiin bacdallahi ninkii oo hay'adii ama hay'adaha noqoto ama sheeg nimanka leeyahay ummadda leeyahay sheeg muslimiinta marka على أي حال أولاً يد إلهي أباهنا بني آدم كان أمدنا الله كلا أنفع وبالله توفيق